asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhammaan asxaabteena familigana walaalaheena qalbiga meel walba dunida ka joogtaan halkaad naga daawanaysan waa janalkeena studio space sidoo kaleeto waa aniga walaalkiin nuuri maanta waa friday janalka waxaa soo gelaya sada ogtiin taxaniya kurlas cusmaan season 3 xalqada 77 waaye intaan muuqaal gudagelin ka hor haddee tahay marka horeysa janalka aa soo booqatay fadlan daawad waxaa ka codsanaa janalkana subscribe inoo saarto video like aa saarto sidoo kaleeto comment inoo daagto waxay fikradaada aad u mahadsantihiin kurlas cusmaan season 3 xalqada 77 waaye maanta sidaad ogtiin taxanahan maalin walba jimcaha waa la soo geliyaa laakiin asoo fuula janalka lama soo gelin karo waayo copyright ayuu leeyahay sidaas awgeeda taxanahan si online ahaan ayaa lagu dabtaa maalin walba jimcaha haddaad doonaysid inaad ka mid noqdid asxaabaha si online ku daawanayo telefoon numberkii shaashada ay ku qoran yahay +25470 waaye sidoo kaleeta dhanka hoose commentiga linkigaas oo dhigi doono linkigaas ayuu ku hoosibsan yahay telefoon numberka linkigaas aad arkaysaan waa linkiga cusmaaniinta maalin walba oo jimcaha markaan muuqaalkan soo geliyo linkiga hoos ayaa soo dhigaa asxaabaha waxaa jiro fara badan oo whatsappka igala soo xiriiro dhowr group aan sameeyay ayaa jirto groupahaas saytin waan dhigaa oo lagu daawadaa haddii doonaysa groupahaas inaad ka mid noqotid telefoon numberkii wuu ku qoran yahay fadlan markaad telefoon numberka igala soo xiriirayso whatsappka welcome iyo waxyaabaha qaar iga ilaali kaliya waxaad dhihi kartaa assalaamu calaykum waxaan ka socdaa dhanka youtube-ka ah intaas aan u ahaato taxanaha berito ama caawa insha allah ugu horeeya muuqaalka xiga aan soo dhigi doono waxaan noqon doonaa Alberton mid ku xigana Papers ay noqon doonaa Albertonkaas 5 ayuu marayaa 1 iyo 2 ayaan soo gelinayaa marka soo geliyo kadib Papers aan tagaynaa 1 2 3 ayaan soo gelinaa insha allah duu ilaa reedo intii muuqaalka xiga aan kulmayno waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh